war-saxaafadeed culimada Puntland ee Soomaaliyeed ee ku sugan Garowe dhammaantood culimada Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya waajibaadka diineed iyo kan mas'uuliyadeed ee ka saaran ilaalinta diinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxay war-saxaafadeed ka soo saareen aqoonsiga Yahuudda ee Somaliland. Number 2 waxaan si cad uga soo horjeednaa xiriirka aqoonsiga Yahuudda ay sheegtay inay siisay Somaliland taasoo xasuuqday birmageedadii walaalaheen reer Falastiin. Number 2 walaalaha Somaliland waxaa dhammaanteen inagu waajiba difaaca iyo ilaalinta diinteenna dadkeenna iyo dalkeenna. Number 3 walaalaha Somaliland uma baahnin Yahuud ictiraafkeeda xiriirkeeda khiyaamadeeda waayo Ilaah baa inooga digay inaan ku kalsoonno. Number 4 walaalaha Somaliland waxaynu wadanahay ummad Soomaaliyeed oo ka dhaxayso diin dal iyo ehelnimo sidaa darteed kama raali noqon karno soo dhaweysashada iyo garabsiinta cadawga soo jireenka ah ee ummadda muslimiinta ah. Number 5 xiriir kasta oo lala sameeyo Yahuudda wuxuu horseedi karaa fasaad ku yimaada diinta dalka iyo amniga ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Number 6 ugu dambeyn waxaan ku baaqaynaa in la ilaasho midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan alla uga baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed ka saaro jahawareerka qaybsanaanta qabyaaladda abaaraha soona celiyo midnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. wabillahi tawfiiq khayr ku waara.